kulo waan dhageystayaal mar kale to waa qaybtii labaad ee sheekadii laab mid ah iyo lur jacayl oo aan halkeedii idinkaga sii ambaqaadno. baari cadde iyo barni kulankooda wada sheekaysiga ku hadalka Ingiriiska ayaa noqday mid labada dhinac xiiso ku beeray. waxay xilli waliba isugu faani jireen anaa kaa badiyay iyo anaa kaa raayay. barni iyo baari cadde isfahamkoodii wuxuu gaaray heerkii ugu wanaagsanaa, waxaana iskuulka loogu magac daray labadoodii Stars Speak of English oo micnaheedu ahayd xidigaha ku hadla Ingiriiska. xitaa waxaa la isla gaaray labada dhinac in xaafadihii ay degnaayeen isla soo bartaan midba midka kaleeto uu soo raadiyo haddii uu ka maqan yahay private-ka. barni waxaa bugiyo muuqba ku beeray hanaanka habsamida leh ay baari cadde isku fahmeen, waxaana dhacday in baari cadde uu sheegto siduu leeyahay iyada, balse markaa barni wax jacayl maysan qabin wiilka. hayeeshee waxay la dhacsanayd sheekadiisa iyo muuqaalkiisa farxadda ku dheehan ee fanniga iyo kaftanka u muuqda, balse arrinkii ahaa siduu leeyahay iyada ayaa dareen cajiiba ku beeray, waayo wuxuu ahaa wiil iska farxad badan mar walbana weji dabacsan. hayeeshee wuxuu qalbigiis ka yidhi, talow tani maxay sidan kuugu mashquushay, maxayse maalin weliba kugu ammaantaa, malaha waabay ku jeceshahay. ayuu qalbigiisii ku qunfulay. iyada caadi bay lahaydoo damac sidaa u weyn kagama jira. habeenkii kolkii la gaaray inuu diyaariyo exam xilliga kusoo wajahnaa ayaa maskaxdiisii kusoo noqnoqonayeen erayadii laabta bislaynaya ee ay lahayd barni, taasoo fajiciso ku noqotay. hayeeshee markii si loo eego baari cadde waxaa galay dareen kalgacal oo keelitaan dhankeeda ah. dhanka kale imtixaanka waxaa dhankeeda ka diyaarinaysay barni iyo walaashid bilan oo walwal xoogan ka qabtay siday ku geli lahayd, maadaama bilan ay ahayd gabar ku adag kuna dhiban ku hadalka luuqadda Ingiriiska iyo qoraalkeeda. ayaa xitaa waxaa dhacday inay waalidkeed ka dalbato inay isaga baxdo private-kan. hayeeshee ay ku gacan sayreen ayaa waxaa qash badan ka caawinaysay barni oo aktaradii iskuulkaasi ahayd, inkastoo ayadu aysan wax qisha samayn jirin. markii exaamka la galayay ayay ka caawin jirtay ardayda wax qisha inay garab ku siiso. bilan waa ay ku adkaatay inay xitaa qishkii loo sameeyey wax ka garato, waayo ninka wax qishaha ayaa ah mid wax yaqaan, balse bilan dhan laga maraaba ayayba maaro u lahayd. xitaa waxay istustay inay ka baaqato iskuulka, balse barni ayay ka baqday. inkastoo labadoodii ay ahaayeen saaxiibo, ayaa barni waxay jecleyd in walaashid waxbarashadeeda heer sare ay ka gaadho. dhegeystayaal waxaa halkaa nooga dhan qaybtii labaad ee sheekadii la magac baxday laab mid ah iyo lur jecel. intaynu dib u kulmi doono qaybta saddexaad ee sheekada, waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo. Ilada waa habkeeda
صوته وحيدي قطعتي ويدادي صوته وحيدي قطعتي إلا ذا وحكيدا وغير في حسيقا إنسان وهناوي دبتا ولدوي وحامكو إلهوي أبكا وجياقا وجهاga عليكم والولاية قلبي جوا الهدايو وقتك قوي أدائي ولا شيء وذاك الجعيل وين لقى إصالي الله